ninku wuxuu afka geliyey xabad xanjo ah kadibna si degdeg ah ayuu u calaliyey dhowr jeer. Markaas ayuu si adag ugu dhejiyey dusha mitirka cabirka. Wuxuu mitirkii geliyey gudaha musqusha isla markiiba taleefankiisii ayaa iftiimay. Ninku wuxuu dareemay rajo yar oo badbaado ah. Wuxuu si degdeg ah isku dayay inuu taleefanka furo laakiin hal gacan oo keliya ayuu adeegsan karayay. Mitirkii ayaa ruxmayay taasoo ka dhigtay inuu si sax ah u xakamayn waayo. Dhowr jeer ayuu ku fashilmay furitaanka telefoonka ugu dambayntiina telefoonku wuxuu isku xiray 1 daqiiqo. Markuu taas arkay ninku aad ayuu u quustay. Mid ka mid ah gacmihiisa waxaa ka mudnaa bir weyn. Haddii aan si dhaqso ah loo daaweyn dhiig bax ayuu u dhiman lahaa. Waxaase ka sii xumaa in wax ka yar saacad gudaheed dhismaha la qorsheeyey in la qarxiyo. Maadaama uu ahaa naqshadeeyaha ugu weyn ee mashruuca wuxuu ogaa in marka qaraxyadu dhacaan uu dambas noqon doono isaga iyo musqushanba. Markii daqiiqadii dhammaatay wuxuu mar kale isku dayay inuu telefoonka furo. Laakiin walwalkii badan ayaa qaladaad badan ku keenay. Markan xanjadii ayaa ka dhacday mitirkii oo ku dhegtay telefoonka. Ninku si hoose ayuu u habaaray kadibna isdejiyey. Hal xabbo oo xanjo ah oo keliya ayaa u haray haddii uu mar kale fashilmo wax walba way dhammaanayaan. Markan aad ayuu taxadar u yeeshay. Nasiib wanaag wax qalad ah ma dhicin, telefoonkiina wuu furmay. Ninku aad ayuu u farxay wuxuuna markiiba isku dayay inuu xaaskiisa waco. Laakiin gacantiisa ayaa siibtay, wicitaankiina wuxuu galay madaxiisii shaqada. Taasi xumaan uma noqon. Madaxiisu shir jarayd ayuu meel u dhow ku qabanayay. Markii wicitaanku dhacay, ninku si degdeg ah ayuu ugu sheegay meesha uu ku xaniban yahay iyo waxa dhacay, isagoo baryaya inuu si dhaqso leh u badbaadiyo. Laakiin madaxiisu markii uu maqlay arrinta wuxuu ugu horreyn weydiiyey inuu booliiska wacay iyo in kale. Markuu ogaaday inuusan wicin wuxuu yidhi inuu isla markiiba imanayo. Muddo yar kadib ninku wuxuu maqlay gaariga madaxiisa oo soo gaaraya. Wuxuu bilaabay inuu qayliyo oo darbiyada garaaco si uu dareenka ugu soo jeediyo. Laakiin waxa uusan filayn ayaa dhacay. Halkii uu caawin lahaa, madaxiisu wuxuu maqaayada oo dhan ku daboolay maro caag ah, isagoo gebi ahaanba xiray muuqaalka dibadda. Ninku ma fahmin sababta uu sidaas u sameeyey wuxuuna galay cabsi daran. Daqiiqad kadib ayuu isdejiyey. Maadaama uusan ku kalsoonaan karin madaxiisa wuxuu go'aansaday inuu booliiska waco. Wuxuu garaacay lambarka gurmadka degdega ah. Laakiin isla markii wicitaanku xirmay, ka hor inta uusan hadlinba signalka ayaa go'ay. Isagoo argagaxsan ayuu telefoonka garaacay, balse si kama ah ayuu uga tuuray gacanta. Ninku wuxuu galay quus buuxda. Wuxuu eegay wakhtiga harsan, wax ka yar nus saac ayaa ka harsan qaraxa. Markaas ayuu go'aansaday inuu isdhiibo. Wuxuu iska bixiyey saacaddiisa oo meel suray, isagoo sugaya geerida. Laakiin isla wakhtigaas ayuu arkay sanduuq qalab ah oo ku dhegan kaadimareenka. Wuxuu xusuustay inay u badan tahay inuu mindi ku jiro. Wuxuu ilko isku qabtay isagoo xanuunka u adkaysanaya, wuxuuna si tartiib ah isu rogrogay. Birtii gacantiisa ku mudnayd ayaa lafaha iyo hilibka si daran u xoqaysay. Xanuunka daran ayaa ku dhowaaday inuu miyir beelo, laakiin rabitaankiisa badbaado ayaa sii hayay. Ugu dambayntii wuxuu gaaray sanduuqii qalabka. Muddo kadib ayuu miyirkiisii soo laabtay. Dhiig badan ayaa gacantiisa ka qubanayay. Wuxuu iska furtay xarigii qoorta oo si adag ugu xiray gacanta si uu dhiigga u joojiyo. Kadib wuxuu furay sanduuqii qalabka wuxuuna ka soo saaray mindi. Wuxuu bilaabay inuu ku xoqo qufulka albaabka musqusha. Markii uu dhowr jeer xoqay ayuu arkay in qufulkii dilaac yar yeeshay. Rajadiisa ayaa kor u kacday wuxuuna sii kordhiyey xoqidda. Ugu dambayntii qufulkii wuu jabay. Ninku albaabkii ayuu laad ku furay, kadibna si tartiib ah ayuu daahii cagaarnaa dhinac ugu riixay. Wuxuu ul ku xiray albaabka si uu u furnaado. Kadib surwaalkiisii ayuu iska bixiyey, dubbe ayuu ku duubay, dabna wuu qabadsiiyey si uu uga sameeyo shumac dab ah. Wuxuu si xoog leh ugu tuuray bannaanka isagoo rajaynaya in qiiqa dabka uu dadka shirka jooga soo jeedin doono. Laakiin nasiib darro dabkii wuxuu ku dhacay meel u dhow musqusha. Halkii uu dadka soo jiidan lahaa, qiiqii ayaa dib ugu soo galay gudaha musqusha. Haddii sidaas ay ku sii socoto wuxuu ka baqay inuu qiiqa ku neef qabto. Wax kale oo uu sameeyo ma jirin. Koofiyaddiisa ayuu biyo wasakh ah ku guray, dabkiina isaga qudhiisa ayuu ku damiyey. Wakhtigaas wax ka yar 10 daqiiqo ayaa ka harsanaa qaraxa. Wuxuu u baahnaa qorshe kale oo baxsad ah. Markaas ayuu arkay wax bannaanka dhaqaaqaya. Wuxuu god yar ka eegay derbiga wuxuuna arkay bakeyle yar. Qalabkii qaraxa ayaa meel u dhow yaalay. Fikrad cusub ayaa maskaxdiisa ku soo dhacday. Wuxuu sanduuqiisa qalabka ka soo saaray karootada wuxuuna ku tuuray meel u dhow qalabka qaraxa si uu bakaylaha ugu soo jiito inuu xariga qaraxa gooyo. Wax yar ayaa u harsanaa inuu guulaysto, laakiin degdegiisa darteed ayuu bakaylihii cabsi geliyey oo uu cararay. Si kastaba ma uusan quusan. Kadib markuu si taxadar leh u eegay bannaanka wuxuu la yimid qorshe kale. Wuxuu furay daboolka shidaha dabka, shidaalkii harayna wuxuu ku shubay warqad musqusha ah. Kadib wuxuu warqaddii ka tuuray albaabka dilaaciisa. Warqaddii waxay u rogmatay sidii uu rabay ilaa ay ka gaartay qalabkii qaraxa. Ninku aad ayuu u farxay. Wuxuu dab qabadsiiyey dhinacii kale ee warqadda. Markii dabku si degdeg ah ugu sii fidayay, wadnihiisa ayaa si xoog leh u garaacayay. Laakiin isla markii dabku ku dhowaa inuu gaaro qalabkii qaraxa, isagoo rajadiisii ugu dambaysay adeegsanaya, Frank wuxuu kabtiisa ku tuuray qalabkii lagu xakamaynayay qaraxa. Nasiib wanaag si sax ah ayuu u haleelay waxaana istaagay saacaddii qaraxa.
Frank wuu farxay isagoo moodaya inuu badbaaday. Laakiin si lama filaan ah, khabiir ka tirsan kooxda qaraxyada ayaa yimi. Frank wuxuu ka baryay inuu marka hore badbaadiyo, balse intuusan caawin ayaa saaxiibkiis dhabarka ka weeraray khabiirkii. Intii ay isqabsanayeen ayaa si khalad ah loo dhaqaajiyey qalabkii qaraxa. Qarax weyn ayaa dhacay. Goobtii oo dhan waxay isu beddeshay burbur. Laakiin sheekadu halkaas kuma dhammaan. Musqusha la qaadi karo waxay ka samaysnayd bir adag, sidaas darteed waxay ku aastay burburka dhexdiisa iyadoo Frank weli nool yahay. Markii uu miyirsaday, Frank wuxuu isticmaalay headphoneshkiisa iyo telefoonkiisa si uu uga jiido bir ku qabatay gacantiisa. Kadib wuxuu saabuun dareere ah ku shubay gacantiisa iyo birta si ay u simbiriirixdaan. Xanuunka darteed ayuu xeerkii qaniinay si uusan u qaylin. Ugu dambayn, isagoo adeegsanaya xooggiisii oo dhan, Frank wuxuu ka soo bixiyey gacantiisii ku dhegnayd wuxuuna ka soo baxay burburkii isagoo nool.